madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saliic iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa kulan xog isweydaarsi oo ku saabsan mashruuca maamul daadejinta dawladaha hoose GPLG kula qaatay xarunta dawladda hoose mas'uuliyiinta degmada Burco. kulankan oo ay mas'uuliyiinta degmada Burco ay ku soo bandhigeen waxyaalaha uga hirgalay mashruuca GPLG ayaa waxa ugu horeyntiiba halkaas dal kala duwan ka soo jeediyay maayirka degmada Burco iyo sidoo kale xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco. barnaamijkan la GPLG ama maamul daadejinta horta GPLG gu sidiisaba dhowr jeer horena goliyay waan ka sheegay madaxweyne ku xigeen waa mucallim waxtar waa leeyahay laakiin waxtarkiisa waxa ka muhiimsan waxbarasho ayaa laga helay horta dhinaca macallin buu ka yahay dadku wax buu baray nidaamka ama waxa la yiraahdaa maamul daadejinta waxa laga yaabaa in institution kasta cid u sareysa siday u maamulayso ay ku kala gedisan tahay horumarkoodii wada shaqeyntooda haddii isagu keligii damcaynu hoggaanka jiido ma jiidi karay halkii ugu wanaagsanayd ayay maanta noo maraysaa dhaqaaluhu waa nin iyo taalkii waa qof walba inta uu Ilaahay siiyay ama haw yaraato ama haw baato waa qof walba inta Ilaahay siiyay laakiin waxaan isleeyahay inta yar aanu haysano si daacad ku jirta waan u maamulanay mudana madaxweyne ku xigeen horta maanta farxad gaar ah inoo tahay chance kan maanta aan helayna chance looga wacni ma jiro hoolkan maanta aynu joogno waa mashaariicdii 2016 ee GPLG-da waxa soo raacay laba sariibadood oo midna saylada tahay midna tahay xiriirkii hore xilliga maanta aynu xariga aad nooga jirtayna waad arkaysaa inta u dhaxaysay oo 3 years horta challengeska xagga donorska in badan waanu ka hadalnay caqabadahaasi horta way jiraan faa'iidooyinka aanu ka helay mashruucan GPLG-ga tireerinka shaqaalaha iyagu horta si wanaagsan bay u qaateen xafiisyada loo hirgalay ee shaqadii loo fududeeyay eemiska iyo biilasha iyaguna waa waxyaabaha aanu ka faa'iidnay mashruucan GPLG-ga maamul daadejinta oo si hagar la'aan ama hufan degmada Burco iyadana uga shaqeysa oo shaqadu sida badan ama sida qaalibka aanay ku koobnayn xafiiska maayarka iyo xafiiska xogayaha kaliya ayagaasimayaasha iyo wixii shaqaale ka hooseeya mid walba shaqadiisa si toos ah xorriyada u wato geesta kale waxa halkaas ka hadlay barasabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi injineer Xuseen Maxamuud Shiciir oo ka mid ah saraakiisha mashruucan GPLG iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale dhamaantoodna waxay tilmaameen mashruucan GPLG muhiimadiisa iyo sidoo kale sidii uga faa'iideysatay degmada Burco mudane madaxweyne waxaad indhaha ku soo aragtay mashaariicii GPLG ee la qabtay waxaad sidoo kale halkan sharaxaad laga bixiyay muuqaal video iyo maqalba leh mashaariicda socota iyo kuwa mustaqbalka la filayo in laga filiyo degmada Burco oo ay hormuud ka yihiin dawladda hoose iyo mashaariicda GPLG waxa sidoo kale warbixin dheer laga bixiyay faa'iidooyinka laga helay mashruuca GPLG aynu soconaa inaynu hay'adaha waxaan kaga wareegno oo aynu loo wareegno maamul daadejinta caafimaadka tacliinta biyaha korontada wixii alla wixii services ee horta sanitation waa haysan marka taasaan ku bogaadin lahaa shaqooyin fara badan runtii waa qabsateen waydan ku faanina faankiina waa soo baranaysaan saani magaar aad ay noola shaqeeyaan dawladda hoose 150 mushaharka siiyaan oo nadiifiyada iyo waashmanada 50 macallinna waxay siiyaan gunnada oo ku tuulayasha taas baa horta dawaab had ilaahay oo la iska weynaga qaadeen madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saliic oo ugu dambeyntii hadaladii halkaas laga soo jeedinayay ka hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay mashruucan GPLG-ga ujeedooyinkiisa iyo sidoo kale bogaadin uu soo jeediyay mas'uuliyiinta degmada Burco oo tilmaamay in si weyn uga faa'iideysteen mashruucani burgalida mashruucii GPLG-ga halkuu marayo oo sanad walba waa socdaalkii sanadlaha ay ku soo marinay degmooyin ka socda mashruuca GPLG runtii waana degmadii saddexaad waxaan maanta joognaa runtii muhiimadda mashruucan looga dal lahaa waxay ahayd in lagu tababaro hay'adaha dawladda hoose inay awoodooda maamul kor loo qaado
awoodooda shaqo la maarta la xoojiyo si ay adeegyada loo baahan yahay ay dadkooda ay u qabanayaan ay ugu tababarmaan ujeedada ugu muhiimsan waxa weeyaan adeegyada bulshada ee dastuurkeenu jideeyay in la hoos loo soo dadejiyo oo loo dhaadhiciyo bulshada halka hooseysa in dawladda hoose kolba intii ay qaadi karaan ee capacity ama awood u yeeshaan in lagu soo wareejiyo. ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa si rasmi ah xadhiga waxa uu ka jiray dhismo dabaq oo laga hirgeliyay xarunta dawladda hoose ee degmada Burco isla markaasina ay ku shaqayn doonaan mas'uuliyiinta degmada Burco kana mid ah mashruuca GBLG. Khalid Bakayle wararka fogaan aragga xorta Star TV Burco.